iyadoo guud ahaanba waddanka Kenya goboladiisa iyo degmooyinka ay ka soconayaan ololaha doorashooyinka ee dadweynuhu ay ugu soo bandhigayaan taageerada ay u hayaan xisbiyada kala duwan ee waddanka Kenya ayaa gobolka Sielo waxa ka dhacday ololihii doorashada ee ugu ballaarnaa ee tan iyo intii ololaha doorashooyinka ku soconayay lagu qabto magaalada Sielo. ololahani doorashada oo ay dadweynuhu shucuurtooda ugu muujinayaan taageerada buuxda ee ay hayaan xisbiga UBK iyo musharax Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil oo u taagan jagada Senator iyo sidoo kale jagada loo yaqaano Governanka oo u taagan yahay musharaxa magaciisa loo yaqaano Domisiano iyo kursiga loo yaqaano Women Repka amaba kursiga dumarka oo ay u taagan tahay Aamina Gamaadiid. soo baxani oo noociisa oo kale hore loogu arag gobolka Sielo ayaa ahaa mid gilgilay dhammaanba dariiqyada iyo jidadka dhaadheer ee dhexmara magaalada Sielo iyagoo dadweynuhu markaasi ay halkaasi ku soconayaan gaadiidka waaweyn iyo gaadiidka yaryarba iyo mootooyinka iyagoo ka ruuxaya astaanta iyo sawirada xisbiga UBK gaar ahaan musharax Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil iyagoo dadweynuhu gabagabadii ay isugu yimaadeen barxadda weyn ee ku taala magaalada Sielo bartankeeda ayaa waxa halkaasi ka soo qayb galay xubno kamida baarlamaanka waddanka Kenya xubno kamida golaha deegaanka ee gobolka Sielo odayaal waxgarad waalidiin ururada dhalinyarada iyo ururada haweenka iyo dhammaanba dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan gobolka Sielo. Master Domisiano oo taagan jagada loo yaqaano Governanka ee xisbiga UBK isagoo markaasi halkaasi dadweynaha ugu mahadnaqay kuna hambaliyay sida ballaaran ee sharafta leh ay markaasi u soo buuxiyeen barxadani iyagoo oo markaasi taageeraya xisbiga UBK. Napenda kubadilika nikasema simama na Abdiraxmaan kwa senata ya Sielo. gabagabadiina waxa halkaasi khudbad dheer qaatay Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil oo ah musharax ku dhashay waddanka Kenya isla markaasina xisbiga UBK u taagan jagada senatorka asal ahaana ka soo jeeda waddanka Somaliland. ma ogolaateen Cabdiraxmaan inuu senator ku filan yahay hawsha calaamadaha kala taqaanina ku qaldamina dhibaatooyin badan baa gobolkan ka dhacay dadka midnimadiisa aan rabnaa inaan ka shaqeyno ammaanka ku dadaala doorashadana si xor ah u doorta cidina idinma suubi karto aadna u soo baxa in dadka doonaya inay carqalad geliyaan ay isku day doonaan habeennimadii dadka qaada ay u qaadaan khamrisiyaan rabsho kiciyaan hayeelina hayeelaysaan ammaan doonaysaa bas insha Allah waxaan isku warnahay ballanteenu waa bisha afarteeda iyo doorasho wanaagsan oo xalaal ah oo nabadgelyo Allah inoo sahal amiin. ololahani doorashada ee lagu qabtay magaalada Sielo ayaa noqonaya kii ugu nidaamka iyo bilicda sama tan iyo intii ololaha doorashooyinka ay ka soconayeen gobolkaasi Sielo. Abdullaahi Cabdi Cali TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, Nairobi.